جولاي كوديدي 1971 madaxweynaha golaha sare ee sawrada Charles Siyaad isaga oo ka hadlaya dalalka Soomaaliyeed ee wali ku jira gacanta dalalka aynu jaarka nahay waxa uu si weyn u tilmaamay inay tahay lagama maarmaan in heshiis iyo afgarasho laga gaaro dalalka Soomaalida ah oo dadka walaalaheena dariskeena ay haystaan waxaan iyada kale yahay oo annagu aanu ka qabnaa in dawladaha madaxdoodu iyo dawladuhu intuba in ay isu yimaadaan oo ay dhibaatooyinkaas dhex yaala oo isticmaalku ay dhaliyeen oo ay ula jeedeen inay naqaybiyaan annaga walaalahan iyo annaga intay naqaybiyaan waxna dhex dhigaan dhibaato noo sameeyaan
kadibna ay nagu mushtaraan annaga dhexdanada inaanu garanno oo dad xilkasta annagoo ah aanu ka tashanno oo danahanaga aanu u kala fahamno si run ah oo dhibaato la'aan adduunka qoomkii kasta oo joogaaba madax bay leeyihiin haddii madaxdaasu ay wax daran ugu guddoomisana markii madaxdaasu ay tagto ay dhimato magac xumay ka tagaan habaar baa laga daba diraa cay baa laga daba diraa kuwii inkaarta qabay oo joogay maxay waxaa xun noogu guddoomiyeen ayaa qoomkaas yidhaahdaa ama shicbigaas yidhaahdaa haddii ay wanaagooda ka taliyeen oo ay ka shaqeeyeenna magacsan bay ka tagaan dadku waa ku mahadiyaan wanaag bayna ku xusuustaan waxaan anigu taa ka leeyahay ilaahay baa xugmay annaga iyo Ethiopia iyo Kenya inaynu ku noolaano geestatan Afrika inaguna hadda waa ku noolahay shak kuma jiro qoonka naga dambeeyana meesha ku noolaan doona marka wax tirtiri kara ma jiraan haddaba maxaa nala gudboon madaxda saddexda dawladood ma inaanu wax daran u guddoomin dadkanagii oo isku laynaa mise waa inaanu garanno oo wixii dhex yaala ay si fiican inta ugu tashadaan ay markaas si xaq ah oo saaxiib ah oo walaalnimo ah oo daris ah oo muxuu ah cadaala ah wixii isaga qasan inay ku qaybsadaan miya hadda waxaan is leeyahay wanaag wuxuu ku jiraa inay ku qaybsadaan sidaas xaq ah haddii aan French Somaliland ku imaado waxaan ka leeyahay annagu waxba kama qabno waana aan salaamaynaa saaxiibnimada iyo isu dhawaadka iyo safkaradka dadka degan dalkaas loo yaqaan Soomaaliya Franchise waxaan sunnaynahay isu dhawaadkaas iyo saaxiibnimada is afgaradkaas waa inuu u socdaa oo ay dawladda Frenchigu ay yeeshaa dadka iyaga ah inay ogolaato khiyaarkooda inay ogolaato xornimadooda inuu siiyo saabaanu ku leenahay dawladda Frenchiga annagu haddii waliba loo eego taariikhda dawladda Franchiska ah oo ka dhalatay dawladda revolutionary weligeedba ahayd oo xoreysay Afrika oo idil oo ay kaga hartay Soomaaliya Franchise inay xoreyso ayaanu weydiisanaynaa una ogolaato sida iyagu ay ka jecel yihiin waxaan is leeyahay taladaasu waa tala ugu fiican ama waa siyaasad ugu fiican baan is leeyahay Barakaysa,